waxaan u gudbaynaa maanta guddiga ugu dambeeyey qorshe hawleedkeenna ilaa hadda intaan hayno. hadda waxaan u yeedhaynaa guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo inoogu jiray maanta qorshe hawleedkeenna. kusoo dhawaada mudanayaal. ujeedda soo gudbin warbixinta guddiga miisaaniyadda xisaabaad dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee kalfadhiga kontonaad. mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwooyin salaan qadarin iyo xushmad mudan kadib guddiga miisaaniyadda dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiilada oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo wuxuu kormeerka ku tagay qaybo ka mid ah gobollada si uu ugu kuurgalo xaaladda dhaqaale ee dalka iyagoo goobaha ay kormeereen kula kulmay mas-uuliyiinta hay-adaha. sidoo kale waxay guddigu kulamo xog waraysi iyo su'aal weydiin ah xarunta golaha wakiilada kula yeesheen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda, hantidhowrka bangiga iyo xisaabiyaha guud. haddaba guddigu iyagoo ka duulaya waajibaadka shaqo ee ku cad qodobka 64 ee dastuurka dowladda puntland, qodobka 62 farqadiisa 6 iyo qodobka 68 ee xoraasaadka golaha wakiilada, wuxuu halkaan idinku soo gudbinayaa warbixin kooban oo la xiriirta waajibaadka guddiga intii u dhaxaysay labada kalfadhi. mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwooyin, guud ahaan puntland waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo aad u adag iyadoo ay ugu wacan tahay caqabado kala gedisan kuwaasoo isugu jiro kuwa aan la wadaagno adduunka iyo soomaalida kale iyo kuwa inoo gaara. waxaa adduunka iyo soomaalida kaleba aan la qabnaa duruufaha dhaqaale xumi oo ay sababeen caabuqii COVID-19, saamaynta colaadda waddamadii wax soo saarku ka imaan jiray, sixir barar baahsan oo ay sababtay qorshe la'aanta xukuumadda, waxaa yaraaday ganacsigii dalka oo dhan, xaaladda kala guurka ee waddanka oo mashaariic badan ay ku xaniban tahay, waxaa yaraaday qandaraasyadii dalka kuwaasoo canshuur badan ay ka soo xeroon jirtay. waxaa hoos u dhacay awoodda wax iibsiga. dowladdu waxay canshuurta ku qaadaa 10% shilin Soomaali, gaar ahaan dekedda Boosaaso, dakhligaas oo aan kharash ahaan u bixin. waxaana hadda khasnada dowladda ku jirta lacag shilin Soomaaliya oo u dhiganta in ka badan 5 milyan oo dollar. abaaraha soo noqnoqday waxay qayb weyn ka yihiin dhaqaale xumida jirta. hay-adaha iyo wasaaradaha wax soo saarka leh oo fadhiid noqday siyaasaddii dowladda oo ku mashquushay ololihii doorashadii madaxweynaha ee socotay 20 bilood ee ugu dambeysay. mudanayaal iyo murwooyin, arrimaha sare ku qoran oo dhammi waxay sababeen in ku talagalkii miisaaniyadda ee 2020 iyo 2 uu ku yimaado hoos isdhin dakhli oo dhan 14 milyan 433 una dhiganta 15% marka la eego bilaha Janaayo ilaa Maarso 2022. waxaa xusid mudan in kharashka ugu badan ee dowladdu ay gasho wuxuu ku baxaa xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada, kaasoo u dhigma 56% kharashka guud. marka laga reebo 2 bilood oo ugu dambeysay waxaa si joogto ah u baxayay xuquuqda shaqaalaha ciidamada. saadaashuna waxay muujinaysaa in xaaladdu ay sii adkaan doonto bilaha soo socda haddii aan qorshe degdeg ah laga yeelan ama la helin ka miisaaniyadeed. mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwooyin, guddigu wuxuu warbixin ka dhageystay xafiiska hantidhowraha guud ee dowladda puntland, wuxuuna la wadaagay dhammaan wixii u qabsoomay intii u dhaxaysay labada kalfadhi, baaritaanadii ay sameeyeen, isagoo la wadaagi doona natiijada kama dambaysta golaha marka ay soo afmeeraan shaqadaas. baarista waxaa lagu sameeyey 12 wasaaradood, 3 hay-adeed oo madax bannaan. waxaa xusid mudan in xafiiska hantidhowraha guud uu gacanta ku hayo xisaab xirka sanad maaliyadeedkii 2021 golahana uu la wadaagi doono warbixinta xisaab xirkaas dastuuriga. tala soo jeedin. mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwooyin, guddiga miisaaniyadda dhaqaalaha iyo xisaabaadka wuxuu ku tala bixinayaa arrimahan soo socda: in lagu dhaqmo lana dhowro shuruucda iyo xeerarka maamulka maaliyadda iyo xisaabaadka dowladda si loo helo hannaan maaliyadeed hufan oo ku dhisan isla xisaabtan. in la dhiso guddiga sare bangiga
board of directorskii sidii aan marar badan soo jeedinay in la dardargeliyo kobcinta dakhli ururinta gaar ahaan canshuuraha biriga si loo helo ku talagalka miisaaniyadda in shaqaalaha ka howlgala goobaha dakhliga loo qoondeeyo dhaqaale ku filan gudashada waajibaadka loo egmaday si meesha looga saaro cabashooyinkan soo noqnoqday ee ka imaanaya shaqaalaha ka howlgala goobaha wax soo saarka lana yareeyo eedeymaha iyo tuhmada musuqmaasuqa la xiriira in kor loo qaado tayada aqooneed iyo xirfadeed ee howlwadeennada hay-adaha maaliyadda kuwaasoo lafdhabar u ah howl socodsiinta hay-adaha maaliyadda in xal waara oo degdega loo helo sixir bararka baahsan ee ka jira puntland si looga baaqsado dhibaato dhaqaale oo daba dheeraata in wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada ay ka wada shaqeeyaan hoos u dhigidda sare u kaca dhammaan adeegyada bulshada gebagabow mudanayaal iyo murwooyin mudane guddoomiye mudanayaal iyo murwooyin sidaad la socotaan waxaa ajandaha inoogu jira xisaab xirka sanad maaliyadeedkii dhammaaday 2021kii aanan rajaynayno in golaha la hor keeno ugu dambayn 30 Juun 2022 si waafaqsan qodobka 137 ee dastuurka dowladda Puntland waxaan rajaynaynaa in goluhu ka gudan doono waajibaadkiisa dastuuriga ah si waafaqsan qodobka 64 ee dastuurka dowladda Puntland wixii kale oo xog la xiriirta xaaladda maaliyadeed dalka waxaan idinkula wadaagi doonaa warbixinta xisaab xirka haddii ee beedmo